فخبروني ونلتقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير نعم الدليل للوفا خبروني ونلتقي لي خليل عوني على أمر ديني للخير فخبروني ونلتقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد درس كمان لو قندي وحو كساب سنة أصحاب الأخدود قصة ينكي أمدي هوريكا دعي يا مسلمين تاها علماء التاريخ قار كمدي waxay yiraahdaan waxay dhacday ahdigii masiixiyiinta ama dad ahlu tawxiid ahaa oo nabi ciise dadkii rumaysanaa ahaa bay ku dhacday bay yiraahdaan waxay sheegaan inay najraan meeshan loo yaqaan ka dhacday waxay sheegaan علماء الآثار in hadda meelahoodii la qoday qayb kamid ah waxay sheegaan in godadkii iyo gubitaanadii iyo wixii hadda علماء الآثار qayb kamid ay qodeen laakiin markaad soo duubto quraanku iyo sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam qisaska markay soo arooriyaan ma soo arooriyaan inta badan iyagoo bitafsiila qofkii qisada qabsatay iyo ablaasha magacyadoodii iyo meeshii ay ka dhacday iyo magaalada magaceedii iyo taariikhda waqtiga ay ahayd iyo tasalsulka ay lahayd quraanka xadiidku inta badan qisaska waxay u soo bandhigaan qaab ah ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qisooyinka ambiyada iyo dadkaas alla uu ka warramayo qisadooda waxaa ku sugan baa ilaahay yidhi cibra ayaa waxay ugu sugan tahay dadka caqliga leh quraanka markaa qisas tiro badan baa ku soo arooray qisaskaasi tirada badan leh oo gaal iyo muslimba leh gaala ilaahay ka warramay fircoon iyo namruud iyo maxaa la yidhaahdaa haamaan iyo qaaruun iyo kuwa kani waxay ahaayeen dad khayr beelayaala nebiyaa alla ka warramay kuwa nebiya laayay baa laga warramay ciidamo muslimiin oo guulaystaa laga warramay kuwa laga xoog badiyaa laga warramay quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo bandhigayaa safxa min taariikhi albashariya aadam laga soo bilaabo calayhi salaam ilaa maanta taariikhda bini aadamka qaybo ka mid ah laakiin waxaa la inoogu soo bandhigayaa qaab ah si aynu uga faa'iidaysanno qisadan maamulka mu'tamarku ay ugu talagaleen muxaadaradan inay yeelato waa qiso la yidhaahdo asxaabi اlukhduud qoladii godadka qisadatan qur'aanku si kooban buu uga warramaya suurat اlburuuj والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد سورة البروج وقصة الله كجور ربي سبحانه وتعالى محدثين تنا وحي ساء روريان حديث صهيب الرومي صحابي اللي ورنشري وساء روريي حديث كاسي حكوية على صحيح مسلم وحكولوكي على إمام الترمذي في سننه كتاب التفسير وحكولوكي على إمام أحمد في مسنده وحديث صحيح يسونه والنبي عليه الصلاة والسلام قصة بقرة وكجور رميه مفسرين توحان إليه نكاسي وحويان هي قصة طني وقصة يقصى أرورتي أصحاب الأخدود
qisada tani duuduubahaan waxaa ilaahay kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala koox mu'miniina oo ilaahay rumaysay iyo boqor gaal ah oo isagu ilaahay diiday ama dadkaba rabbi u sheeganayay wixii dhex maray oo ah inuu godod intuu qoday dab ku shiday dabeetana iyagoo nool uu ku guray qur-aanku qisaska uu ka warramay mu'miniinta iyo gaalada dhex maray waxay yidhaahdaan mufasiriinta rag ka midii 3 qayboodba way u soo arooraan waxay soo arooreen iyada oo kooxdii mu'miniinta ahayd ilaahay badbaadiyey kooxdii gaaleedna ciqaab lagu dabargooyey wax dambena aan laga sii sheegin kooxda mu'miniinta markii la badbaadiyey kadib wax dambe ku dhacay aan laga warramin qisatu saalix qisatu huud qisaskaasoo dhan waxaa soo aroora bay yidhaahdeen qur'aanka iyadoo gaaliya muslimiinta isqabteen ilaahay gaaladii tirtiray muslimiintiina dhulka la makansiiyey oo xoog iyo dowlad weyn oo jirta ay noqdeen sidii fircawn iyo nebi muuse wixii dhex maray fircawn waa la halaagay reer banu israa'iilla dowlad mumakan ah oo ballaadhan ayaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya fircoon dabadii jirtay muddo badan oo boqorro yeelatay nebiya ah nebi daawuud nebi sulaymaan ambiye kale oo tiro badan leh reer banu israa'iil bale ilaahay leeyay wakhtigooda iyaan dunidaba ka fadilay wuxuu kaloo qur-aanku ka warramayaa masaladaa cagsigeed oo ah gaaliya muslimiin inta murankaasi dhex maray muslimka inta gam laga siiyey wax ciqaaboo dunawiyana aanu qur-aanku ka warramin waa qisadaynu maanta dul taaganay qisadaynu dul taaganay qur-aanku wuxuu ka warramayaa asxaabi اlkhduud in la gubay laakiin wax ku dhacay qoladii gubtay qur-aanku ma sheegin lama odhan iyagana dhulkaa lala gooyey ama balaayo kale ku habsatay ama wax kale ku habsatay wuxuun baa la sheegay in qoladaasi la gubay waxaa kaloo la sheegay aakhire isna inuu ilaahay duul gubi doono ina aladiina fatanuu اlmu'miniina wاlmu'minaati uma lam yatuubuu falahum cadaabu jahannama walahum cadaabu اlxariiq ilaahay isna aakhire inuu dad gubi doono ayuu ilaahay ka warramay laakiin lagama warramin iyagii wax ku dhacay qisada tan baynu markaa isdul taagaynaa qisada tan inta badan dadku qisaska waa garanaya ama qur-aanka waa la akhriyey laakiin waxaan isku dayi doonaa intaan guud maro mawaadicda ama meelaha bal culammadu waxay ka tilmaamaane cibarkaa inaan wax ka mida tilmaamo ilaahay suuradda qur-aanka ee wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud washaahidin wamashhuud intuu dhaartay sabadan buruujta le baan ku dhaartay burjuga asalkiisu waa qusuurta ama waa xusuunta waa dhufaysyadan la galay iyo qalcadaha iyo meelahan waaweyn ee dadku isku ilaaliyaan waxaa kaloo la yidhahaa manaajisa sare ama qusuurta abraaj waa طabaqaadka qusuurta ah waxaa kaloo culimmadu ay ku tilmaameen inay yihiin meelaha kan socodada xidigaha sida dayaxa ama cadceedda meelahay degaan manaasishana buruuj waa la yidhaahdaa ta la yidhaha 12 minzil buu degaa ama 12 burji dayaxna la yidhaha 28 burji buu degaa qaabkaa looga warramo ilaahay wuxuu leeyahay cirka kan buruujta iyo manaasisha u saaxiibka ah baan ku dhaartay wasamaa'i daati اlburuuj walyowmi اlmawcuud maalinta labayaboohay baan ku dhaartay iyo washaahidin mid xaadiray iyo wamashhuudin ku la xaadiray ama washaahidin mid markhaatiye wamashhuudin ku loo markhaatiyey ama lagu markhaatiyey ilaahay wuxuu tilmaamayaa subxaana wa tacaala 3 shay oo ku dhaaranayo midi waa wasamaa'i daati اlburuuj midna yowmi اlmawcuud axaadiista nebigu waxay ku tilmaamaysaa yowmi اlmawcuudku inuu maalinta qiyaame yahay waxaa kaloo soo arooray xadiidku inuu sheegayo shaahidku inuu maalinta jimco yahay waxaa kaloo soo arooray xadiid sheegaya mashhuudku inuu maalinta carafa yahay haddaad doonto 3 maalmood ka dhig haddaad doontana shaahidkiiyo wa mashhuudku waa wax kasta oo makhluuqa bay noqon karaan ilaahay markuu dhaartay wuxuu ku dhaaranayaa qutila asxaabu اlkhduud ay laqad qutil asxaabu اlkhduud waa la laayoo la nacdalay godadka kuwii u saaxiibka ahaa godkii baa laga bedelo annaari daati اlwaquud baa la yidhi
kuwa saaxiibka naarta horitaanka leh ama xaabada wadata النار ذات الوقود صفة كالو ألا نمن كان سيوا محي قورما لنا عضلي إذ هم عليها قعود بقردن يقولدن قالت صفات كلها يوحى كمدا ما يلين وقرا مسلم كا اللين تودا كنت لذودين لين تودا أي معان سدين كأنما رواية لطاونية بن آدم كوحيابان ملاهيدة وضاوضه تدكي انت قدد الله قضي ayaa dab lagu guraya dumar iyo caruur iyo cid walba lagu guraya madaxduna ay daawanaysaa waxa dareemaysaa bini aadamku markuu lumo xad inuu gaadho xayawaanka muftariska uu ka dareeyo xayawaanku wuxuu cunayo qabsadaa laakiin bini aadam intaad gubto inaad gubistiisa daawato iyo siduu u huruushoonayo iyo baruurta ka sheelmaysa iyo si uu jacjacleeyahay waa manzilo cajiiba ilaahay qoladan wuxuu ku sifeynayaa maantana waa la mid bini aadamkaasaa la tumayaa baman balaayo naabaallo dabeetana tvyadaa laga daawadayo waa la isku daawanaya bini aadam la gubayo mararka qaarkoodna waxaa la yidhaahdaa markay dumarka iyo carruurta iyo waxaa ku dhacaan iyagaa taagnaa meel qaldan bay yidhahdaan gantaalka qolaa loogu talagalaye iyagaaba taagnaa meesha qaldan oo iyagaaba marxuum qaldaan weeyaan isagaa demiga lahaa ayan kaanat ilmasala ilaahay qur-aanka wuxuu ku sifeeyey dad mu'miniinoo la gubayo iyaguna ay daawanayaan id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna shuhuud ba ilahi leeyahay subxaana ilahay wuxuu tilmaamayaa wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid dadka kan jurmiga iyo dembigay galeen waa maxay wax kaloo dembiyo ay sameeyeen ma jiraan baa ilaahay yidhi inay rumeeyeen mooyaane rabbiga casiiska ah وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد إله الله ما هذيه إحوق بدن لإن الربيين ما دم باللغة دقي إلهينا وحى إسماعيل محي وشاهد إلهي تسقط قبصي وحى إسماعيل نسنا مخاتكي والله على ما يفعلون إنه يلا الشهيد كي يسنا أركيو أيوكو قبصي قصة هداني ينقود مرة حديث النبي كصار عليه الصلاة والسلام مثلا رواية إمام مسلم وحي شيء نبي يقول عليه كان ملك في من كان قبلكم نبي باكري بقر باكري دت كيدين كيدين كهر ريا كم ده بقر كوحو لها أبو نبي يقول صاحرة بقر هذا الدنيا دو أنت بدن كمان مرمان عد أي كتير صدان عد أي كتير صدان midwaa acwaantiisa iyo askartiisa iyo xooggiisa iyo waxaa haddana baqaa ku jirta uuna ah bini aadamka kale waa kugu maqan yahay markaa cid qaybka uga warranta iyo sida wax noqon doonaan buu jecel yahay hadday dowladdu dowlad mu'minada tahay ilaahay bay rumaysaa subxaana wa tacaala ilaahay bay qaybka ku aamintaa laakiin dadku inta badan kama maarmaan sixiroolayaasha iyo kuwa faaliyayaasha iyo kuwa qaybka ka warramaya kuwa laga yaabaa dadku inay is yidhahdaan imika dowladahan cilmaanigii iyagu waa ka horumareen waa been kuwa maanta jiraana sidii bay weli u isticmaalaan dunida maanta joogtaana weli sidii baa loo isticmaalaa falalowyada iyo saaxirada iyo waxaas ilaahay nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ninkii saaxirka ahaabaa markuu gaboobay ee boqorka sixirka u samayn jiray ayaa wuxuu boqorkii ku yidhi war waan gaboobay ee waxaad ii soo dirtaa wiil yar oo caqli badan oo aan baro cilmiga sixirka ii soo saar wiil baa loo soo diray markaa yar oo la yidhi wiilkaa sixirka bar wiilku halkii madrasadii sixirkee uu ku socday ee ninkaa sixirka caalimka ku ah markuu u tegayo sii socdo dariiquu sii mari jiray wuxuu ku arkay sawmaca nin raahibi leeyay nin raahibo oo wadaadoo meel degan ayuu arkay dabeetana wadaadkii buu iskala yaro fadhiistay wadaadkaas muwaxidka ee diintii nebi ciise ka tegay haysta ayaa wax u sharxa way cajab gelisay wixii wadaadkani u sharxayay hadhowna saaxirku uu tagaa saaxirkuna wixii buu u soo sharxaa wuu ka soo noqdaa gurigooda markuu u sii socdana haddana wuxuu soo maraa wadaadkiiyo wadaadka in kaloo